أصحابت وايد سلامي سو دوادا كسو دوادا رونشاق ميديا نتورك أصحابي سنة كان لوada kun labaatan iyo lixda beesha habargidir waxaa ka go'an inay hesho madaxweynaha dalka Soomaaliya inay ku guuleysato ayaa ka go'an beeshu waxay wadaa dadaal xoogan oo runtii geed dheer iyo geed gaaban loo fuulayo si loo heli lahaay xukunka in la hanto sanadkan haddii aysan beesha habargidir ku guuleysan madaxweynaha ugu yaraan waa inay heshaa ra'iisul wasaaraha maxaa yeelay dalkan siyaasadiisu waxay ku dhisneed hanaan runtii cidda kuraasta qaadanayso iyo sidii wax loo qaybsanayo waxay ku dhisneed 4.5 waxaa jirtay siyaasad guud iyo waxaa jiray ma aragtay muxuu ahaa qorshe runtii markasto beeshan lagu seexi jiray abgaal ayaan markasto dhisi jirnay anaga markasto waxaan ka shaqeey jirnay sidii abgaal uu ku noqon lahaay madaxweyne laakiin waxaa hadda muuqato oo runtii soo baxayso walaalaheen abgaal inay baka dhigteenba xilka dalka ugu sareeyo sidii aayad quraan inaan la bedeli karin ayagana ay u tahay ama madaxweynaha uu yahay waxay ku soo dagay oo kale ay ka dhigteen saxna ma ahan aqlina ma ahan walaalayaal waxa loo baahan yahay marka isbedel inuu sanadkan dhaco maxaa yeelay kursigii aan kala shaqeynaynay oo aan runtii markasta ku taageeraynay oo markasta dhisaynay ayay hadda waxay ka shaqeeyeen inay dhabarka nooga toogtaan oo ay markasta nagu dhibaateeyaan oo ay waliba hadda taaramkan ugu daran tahay maxaa yeelay dhibka ugu badan cidda uu ku dhacay waa habargidir marka runta laga hadlo cidda dulmiga ugu badan loo geystay habargidir waaye annaga waxaan dhisaynay walaalaheen abgaal oo markasta aan kala shaqeynaynay si xukunku u heli lahaayeen oo markasta aan dhahaynay mataqaanaa ha idinka hormaraan siiya u samra marka walaalnimadii hiraab waxay noqotay in anaga aan markasta ku dulmanaano maadaama walaalaheen calaf mataqaanaa calafkeenii oo isku dhex jiro markastana calafkeenii ay qaataan haddana aan ayagoo qaadanayo annagoo raalli u ah oo uu samreyno ayay markasta runtii dhabarka naga tooganayeen waxayna noo arkeen doqomo aanan hana karin kursiga dalka ugu sareeyo dalkaana hogaami karin maaragtay muxuu ahaay waxayna ka shaqeeyeen runtii dacaayad raqiis ah oo habargidir wax ma noqon karto haddana waxaa la marayaa in hees loo soo qaaday habargidir see loogu qaadi karaa habargidir hees in hadda la isku haysto marka runtii dhibaato weyn aa socoto marka beesha waxay ka shaqeynayeen inay runtii midowdo sidii kursiga dalka ugu sareeya u hanaan lahayd waxaa hadda yimid madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor runtii wuxuu wadaa kulamo oo la yeelanayo mucaaradka qaasatan xubnaha u taagan madaxtinimada dalkan beeshan u dhalatay iyo dadka habargidir iyo siyaasiyiinta reer galmudug ujeedkiisuna waxay tahay in la mideeyo xuduudda beeshan in la mideeyo runtii Axmed Cabdi Kaariye Qorqor haduusan helin maaragtay muxuu ahaay habargidir mideysan way adkaanaysaa galmudug si uga badbaado doorashada socoto oo halka dhinac ka raran galmudug kama badbaadi doonto hadaysan hadda habargidir aysan midoobin oo la iska dhaafin tafaraaruqa maxaa yeelay hadii saacadna meel u taagan yahay ceerna meel u taagan yahay Saleymaanna taagan yahay Saruurna taagan yahay runtii aan la midoobin oo habargidir oo mideysan oo cudud leh aan la helin galmudug inay ka samata baxdo ama ay ka badbaado qataraha siyaasadeed ee soo socdo iyo dabiinada way adkaaneen marka waxa loo baahan yahay walaalayaal inaan midowno badbaadada galmudug habargidir meelay joogtaba ay midowdo kuna tashato kuna seexato kuna soo kacdo sidii sanadkan 2026 wixii ka dambeeyo ama ka bilowda sanadkanba ileen May 15 waxa ku eg muddaxileedka ma taqaanaa sharciga ee xukuumadan baarlamaankii Abriil oo dhamaana waad ogtihiin tii madaxweynaha 15 May uu eg tahay marka habargidir waa inay ku seexataa qof kasto habargidir waa inuu ku seexdaa kuna soo kaca in doorashadan
ay habargedir ku soo baxdo hoggaan habargedir in la raadiyo maahane dalku wuxuu ka sii socdaa haadaan uu ka dhaca walaalayaal saana laguma daawan karo aqoon-yahanka dhaqanka siyaasiyiinta culummada haweenka dhammaan waa in loo midoobo habargedir meelay joogto dal iyo dibad aqoon-yahankooda ganacsadahooda siyaasigooda dhaqankooda culummadooda waa inay midoodaan haweenkooda waa inay midoobaan lagu midoobaa fikir raadin sanadkan in la raadiyo in habargedir kursiga ay tagto dalka ugu sareyso dalka ugu sareeyo madaxweynaha haddaysan helin meesha ku xigto oon ku qanci karno waa inay noqotaa inaan helno prime minister ama ra'iisul wasaare haddaanan labadaas iskala helin midkood qataraan ku jirnaa jiritaankeena qatar ku jiro ogaada taas aad ay muhiim u tahay runtii marka waxaan dhihi lahay yaa laga shaqeyn kala furfurka runtii waxaan dareemaa kala furfur inuu socdo la isticmaalayo awood dhaqaale la isticmaalayo ceerka degan Dhuusamareeb in la yiraahdo hala kala furfuro Saleymaan in la kala furfuro maxaa yeelay waxaan ognahay hadda siyaasadda socoto haddii hadda muxuu ahay ceer la yiraahdo ma aragtay muxuu ahay mahad loo diro oo ha kala furfuro mahadka ceerka degan ma aragtay muxuu ahay Dhuusamareeb Saleymaan markay u soo gurmadaan qorqorne sacadoo liibaan shulq u rabaan madaxweyne haddii la yiraahdo dhabarka ha ka jibiyaan runtii waa nasiib darro habargedir inay kala taagnaato saaka ay geedo ku kala xirnaato kuma qurux badno waxay ku qurux badan tahay inay midowdo badbaadada galmudug u midowdo badbaadada dalkan waxa ugu yaran ku qanci karnana ay noqoto inaan helno madaxweynaha sanadkan ama ra'iisul wasaaraha labadaas ayaa na qanci karto wixii ka soo haraan nama qanci karaan inaan gudoomiye gobol helno nama qanci karto inaan wasiir arrimaha dibadda helno nama qanci karto inaan safiir helno nama qanci karto walaalayaal waxna qanci karo waa inay noqdaan inaan madaxweyne helno ama aan helno ra'iisul wasaare labadaas midkooda aan qanci karto ogaada dhanka kaleento waxaa jirto siyaasad guud oo ku aadan galmudug oo la qorsheynayo runtii in loo maro hanaan isku dhaf oo la isticmaalayo dhaqaale iyo saameyn in lagu yeesho dadka deegaanka la kala furfuro iyo sandhicintaas galmudug waa inay midowdaa galmudug waa inay midoobaan badbaadada deegaankooda iyo maamulkooda iyo guud ahaan badbaadada iyo samata bixinta dowladnimada Soomaaliya intaasna uga tagaa dhanka kale waxaa soo baxayo kulan u dhaxeeya madaxweynaha Xasan Sheekh iyo gudoomiye Aadan Madoobe Aadan Madoobe waa ogtihiin waa gudoomiyihii baarlamaanka ee ka shaqeeyay dastuur aan loo dhameyn inuu meel marsiyo baarlamaanka doorasho ama guddi doorasho oo runtii aan la isku raacsanin wada ogol ahayn inuu ma aragtay ansixiyo shaqo geliyo howl badan qabtay markii u dambeysana oo kooxu gabeed ka shaqeeyay inuu ka ceeriyo meeshii madaxweynihii halkaas joogay runtii darbi adagna dumiye runtii madaxweyne Xasan Sheekh uu ahay garab iyo gaashaan maanta markuu waxa soo baxayso in dhexdooda uu khilaaf soo galay oo runtii Aadan Madoobe oo u digidam lahaa inuu helo kursigaas madaxweynaha kooxu gabeed Etoobiyana oo runtii codsiyo u gudbistay dhowr jeer inay kala shaqeyso oo waliba xoog ay ku geyso laakiin madaxweyne Xasan Sheekh oo kala kulmay markii uu la kulmay hadallo aanan runtii qancin dadkiisii oo ka soo jeedayna ay ku dhaheen ama ma aragtay muxuu ahaay saameyntiisa siyaasadeedna ay meesha ku baaba'day dadkiisina u sheegayna dhaheen anaga kursi dambe kuuma hayno mar dambana kaala shaqeeymayno inaad ma aragtay muxuu ahaay aad noqoto xildhibaan iyo inaad noqoto gudoomiye baarlamaan ma kaala shaqeey karno marka sumcadiisii iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa halkaas ku sakhiray waxaa kaloo jirto madaxweyne Xasan Sheekh ayuu rajo badan ka lahaay oo ka codsaday in uu ka dhigo musharaxa madaxtooyada ay wadato oo u saxiixo laakiin waxa loo sheegay waxa la yiri guddiga doorashada maadaama dalku aad doorasho qof iyo code marka guddiga doorashada waxaad ka heshaad leedahay ayaa lagu yiri marka halkaas nijab weyn ayaa runtii soo gaaray runtii aaday niyadiisu u dhimatay iyo hamiga uu lahaay wuxuuna ku jiraa hadda ayuu runtii dhexda ka galay iyo walaaco iyo walwal marka maadaama uu runtii dagaal badan galay u galay si uu kursigaas u hana lahaay loona sheegay in aysan hadda suurtagal ahayn in warqad loo saxiixo laakiin waxa guddiga doorashada oo ka helo uu leeyahay marka taas waxay ku tusaysaa marka dadaalkii uu soo bixinayay iyo halgankii uu galay inay meel cidla runtii ku khasaareen siyaasadiisina ay saqiirtay meel iska dhig waxa ku soo haray Hirshabeelle galmudug arinteeda waan ka hadlay hadda laba maamul oo soo haray madaxtooyada waa galmudug iyo Hirshabeelle galmudug waxa ay dadkeedu waa inay midoobaan Axmed Cabdi Kaari qorqor waa yimid magaalada siyaasiyiinta mucaaradku la kulmi doona inta madaxweyne Xasan Sheekh la kulmin
ayaga ugu hormari doona dabcan dadka maaragtay muxuu ahaay oo ku matala kursiga ayuu runtii la kulmi doonaa ee reer galmudug wuxuuna u sheegi doonaa runtii waxa ay suurtagalka dadkuna runtii waa ay tashan doonaan badbaadada deegaankooda ay u tashan doonaan number 1 number 2 na badbaadada Soomaaliya iyo sidii kursigan loo hana lahaay qaasatan beesha Habargadir waa soo sheegay taas waana runtii muhiim waana muqaddas beesha inay sanadkan hesho kursiga dalka ugu sareeyo haddaysan helin madaxweyne aysan helin ra'iisul wasaare qatar lagu jiraa aan markale in ku celsho waa muhiim in sanadkan beeshu midowdo runtii tafaraaruqa iyo kala shakiga iyo dhabarka tooshadan la iska dhaafo loo midoobo runtii danaha beeshan runtii aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay annagoo marka hore cadow dibadda lahayn gudihii ayaa runtii naga qabsatay xaalad adag walaalnimadii hiraabna runtii dhib badan keentay ee tanaasulkeennii iyo lahabxarnaanteennii waxaana loo arkay inaan bannahay dad xoolaa oo aan macno lahayn oo luukisi aan waxba dhaamin ee lagu dul socon karo wixii raban laga samaysan karo marka aqliga inuu shaqeeyo ayaa loo baahan yahay oo runtii xisaab adag aan miiska saarno oo aan tusno inaan nahay dad aan si fudud ama dheeldheel runtii aanan looga talaabi karin xisaabtamaayo u taagan miiskana la taagan xisaab adag iyo gardhigasho ayaan runtii madaxweyne xasan sheekh waa kala shaqeynay inuu ku guuleysto xilka maanta marka waa inuu ka shaqeeyaa sidii beesha Habargadir oo dhisi lahay haddoonse sheekh ka shaqeynay runtii bari u qawmeen waa soconaynaa waan guuleysanaynaa dad waxaan nahay shalayna ma yaqaan sidii qof loo dhiso maantana sidii la isku dhisay yaqaan is dhisi karo beel caalam iyo ma aragtay muxuu ahay Soomaali idilkeed meel kasta degtane xudo karo ay ka raadsan karo saameyn iyo cod ka raadsan karo dhaqaalana haystaan isku filan awooddoodana ay ka maqan tahay kaliya inay mideeyaan awoodii marka in la mideeyaa muhiim si guulahaas loo gaaro dhanka kale Hirshabeelle runtii Cali Guudlaawe waxa haysato laba daran mid dooro xaalad adag ayuu ku jiraa maxaa yeelay guud ahaan Galmudug iyo Hirshabeelle markoodii horeba waxay isku dhiibeen madaxtooyada siyaasada furfuranna runtii mala aysan la imaan oo xafiisadooda kama aysan shaqaysiin oo siyaasadahooda madax banaaneen marka taas waxay keentay inay hadda macnaha loo arko inay yihiin kuwa fudud oo sahlan oo la qabsan karo oo si fudud loo hana karo maxaa yeelay markii loo babac dhigo markii loo babac dhigo Jubbaland iyo Puntland maamulo isu tashtay siyaasadahoodii runtii ka dhigay kuwa ma aragtay deegaankooda anfacayo ka shaqeeyay ma aragtay muxuu xafiisadoodii ka shaqeysiyay ku dhistay xiriir dibadeed iyo beel caalam taageero xoog leh gudaha ka dhistay ciidan adagna dhistay runtii taas waxay keentay kalsoonida shacabkii oo deegaanaasna dhisay waxay keentay marka inay ka badbaadaan qataraha iyo dabinada siyaasadeed runtii dadkoodana ay garab istaagaan oo ay sahlanaa weyso in si fudud loo dhex galo ama runtii gacanta loogu dhigo marka deer adag iyo darbi adag ay dhisteen oo la jabi karin taas keentay marka inay guuleystaan hogaamiyaashoodiina ay runtii si hogaamiyaan deegaanadaas oo dadkooda ay runtii ka gadmi karaan ilaa haddana ay haystaan kalsoonida deegaankooda iyo dadkooda marka taas waa muqaddas haddii la rabo in runtii guule laga gaaro ma aragtay muxuu ahaay ama laga guuleysto qorshayaasha socdo marka Cali Guudlaawe taas oo kala haysato ma aragtay Hirshabeelle kaliya ma ahan Jowhar kaliya ma ahan waa kala maqan tahay abgaalkii xataa Shabeellada dhexe deganay runtii waa uu runtii kala baxsan yahay oo isma haysto runtii midnimo guud ma jirto intoodii badan hadda wacbuudhankii iyo harti abgaal waxay la jiraan ma aragtay muxuu ahaay madaxtooyada way adkaanay marka in abgaal mideysan iyo guud ahaan Hirshabeelle mideysan la isla helo waxa waaye Cali Guudlaawe marka waxay ku xiran tahay sida hadba dadka deegaanka oo uu shaqaysiyo iyo sida uu dhiso ma aragtay muxuu ahaay kalsoonidooda u helo ay ku xiran tahay sida hadba oo guushiisu intay la egtaa marka guud ahaan waxaan moodaa siyaasaddu inay hadda waji kala yeelatay aadamadow waad aragtay meesha ka baxay qorqor waad aragteen kulama socdo oo hadda la yeelan doono mucaaradka iyo guud ahaan beeshan Habargadir iyo guud ahaan reer Galmudug oo runtii ogtihiin inay qabaa'ilaad badan degan yihiin si badbaadada Galmudug loo shaqeeyo kadibna wuxuu la kulmi doonaa madaxweyne Xasan Sheekh runtii asoo ku hubeysan aragtiyo kala duwan qorshihiisana runtii waa cadaan doonaa maalmaha soo xigo ama dhankan uu aadi doonaa oo badbaadada Galmudug u istaagi doonaa iyo dadkan waxa ay ka sugayaan iyo meesha Galmudug u socoto iyo hanaanka iyo hanka ay leeyihiin reer Galmudug ama dhankan uu janjeersan doonaa oo wuxuu noqon doonaa nin la yeeshay oo runtii meel ku xiran Cali Guudlaawe saasoo kale ayaa asna runtii laga filaa aadamadow waad aragteen siyaasadiisii waa soo saqiirtay oo runtii meel cidlaha ay ku soo dhamaatay iyo fashil
kaligiisna ma ahane wasiiradii iyo dadkii runtii ka shaqeeyay darbiga adag gudoomiyay ee Koonfur Galbeed runtii saacado kooban in looga tallaabo ama maaragtay muxuu ahaay la dhaxgalo ka shaqeeyay runtii mustaqbalkooda siyaasadeed waa iska soo xirmay albaabkoodii rajo badan ay leeyihiin hadda maanta ma jirto way arkeen hanaanka wax ku socdaan iyo sida ay wax loo wado iyo qorshayaasha socdo inaynan runtii hamigii ay lahaayeen inuusan meel sare gaarin waa arkeen oo runtii sheekada dhanba la soo gaabiyay madaxweynaha wuxuu la kulmay dhaqanka Koonfur Galbeed wuxuuna u sheegay runtii in wax digil iyo mirfliira aysan jirin maaragtay muxuu ahaay siyaasad guud oo ka leeyahay maamulkaas hanaanna uu mari doono asaga u degsan guddi doorashadan uu jiro oo runtii shaqada qaban doono marka dadkii runtii ka shaqeeyay abaabulkii Koonfur Galbeed in meesha laga saarane gadaal loo dhigay waxa la yiri noo kaadiya qorsheyn hadda kuma jirna anaga ajenda kale iyo dana kale aan wadanaa aadan madow runtii sidahayay wax badan kala shaqeysay madaxweynaha oo darbiyo badan u dumisay albaab badan u garaacday sharciyo badan u marsiiso baarlamaanka u baasgareysay oo runtii u gudbisay adag tahay in laga gudbo hadday noqon lahayd guddi doorasho dastuur wax laga bedelo sharciyo kale loo meel mariyo guddi doorasho oo shaqadiisi gala runtii dastuur la yiraahdo waa la ansixiyay iyo muddo xileed la kordhiyo oo la yiraahdo 5 sano laga dhigay iyo dastuurkii cidda ka hortimaado waxa waaye qaran dumis iyo dowlad dumis loo arkaa marka wax badan oo isku dardaray oo ka shaqeeyay waad aragteen laakiin maanta wuxuu taagan yahay natiijada waxay tahay koona ma tihid labana ma tihid saddexna ma tihid uma tihid madaxtooyada uma tihid dad noo qoran liisa noo diyaarsan natiijada Koonfur Galbeedna anaga gacanteena ku jirta adiga ka aadan shay aadan madoobana runtii dadkaadina waad maanta ku fashilantay oo kursi dambe ku siimayaan siyaasaddaadii waa saqiirtay cid ah gadmaysana ma lahan oo deegaanka dadkaadii waa ku naceen oo ka tashteen maxaa yeelay hab dhaqan aan wanaagsaneyn kula dhaqantay tii oo ka filay federaalka iyo madaxda qarankana waxa lagu yiri wax aan ku hayna saaka habeeraatay ma jirto orodkii aad ordaysay iyo dantii aad noo fulisayna waa ku maasantaa laakiin waxaan kuu sheegaynaa hamiga aad leedahay wuxuu ku xiran yahay hadba natiijada iyo sida guddiga doorashada ay ku arkaan ay ku xiran tahay natiijadeedana waxay ku xiran tahay guddiga doorashada ayaa go'aan ka gaari karo maadaama dalka uu aaday doorasho women for the election kuma sii karna kalsooni iyo inaan warqad ku saxiixino marka guddiga doorashada waxaad ka hesho ayaad leedahay ayaa lagu xiray marka runtii maanta wuxuu taagan yahay inuu dhabanada qabsado hore loo yiri dhuuq hore waxay leedahay dhabana hees dambe marka dhuuqdiisii hore iyo boodboodkiisii hore maanta wuxuu ku soo dhamaaday inuu dhabanada qabsado oo kaligiis isla hadal uu taagan yahay inuu dharka tuurto ayuu runtii qarka u saaran yahay waan arki doonaa halka ay ku dambayso marka guud ahaan xaaladda siyaasadda dalka waxay u jihaysatay jiha kale beesha caalamkana indhahay ku haysaa waxa socdo runtii war murtiyeedyo iyo qoraalay soo saari doontaa statementya iska soo daba dhici doona maalmaha soo socdo isbedelo waaweyn aad arki doontaan ee ku aadan hanaanka doorashada dalka ay ku dhici doonto qaabka loo mari doono iyo waxa la filan karo runtii iyo doorka beesha caalamka iyo positionka ay istaagto waxa soo bixi doono dadaallo ay wadaan dadka aqoon-yahanada iyo bulshada rayidka iyo muuqifkooda runtii culimada doorkooda qaadan doonaan dhaqanka saasoo kale doorkooda ciyaari doonaan dhalinyaradu waa aragteen already waa bilaabeen haweenka runtii saasoo kale waa bilaabeen siyaasiyiintan runtii abaabul guuda socdo iyo sidii dalkan loo badbaadin lahaay siyaasadihi cadcad dalkan siyaasadiisa looga dhigi lahaay mid runtii furfuran hanaanka ay wax ku socdaan runtii ay u noqon doonaan hanaan daah furan la isla ogol yahay beesha caalamka u cad dadka Soomaaliyeed u cad halkay wax ku dhamaan doonaan marka isbedel xoog laha soo socda Soomaaliyeed qorshe badan socdo iyo abaabul xoog leh oo runtii maaragtay muxuu ahaay dalka ka hana qaadi doona maalmaha soo socdo iyo saacadaha soo socda runtii aad arki doontaan isbedelo waaweyn ee iska soo daba dhici doona waxaan si idin sheegaa ugu soo gabagabeynaa guud ahaan fariinta ugu dambayso waxay tahay oon ku diraa beesha habargidir sanadkan waa inay u midowdaa aniga ma idin dhahayo siyaasi hebel iyo musharax hebel taageera idin dhihi maayo musharax gooni ah oo aan runtii beesha ka taageersanahana ma jiro dhammaan waa isugu kay mid walow aan ogahay musharaxiinta qaar inaysan ba u qalmin inay hoggaan isu soo sharaxaan oon ogahay dadkooda inaysan gadmeen oon ogahay inay isla weynin iyo qab runtii meel khaldan gaarsiiyey oo dadkoodii ay iskala weyn yihiin qaarna laga haayo erayo aan ku habbooneen dadkooda iyo deegaankooda horena ay u sheegeen horena aysan ugu gadmin haddana aysan ka gadmi doonin aan ogahay laakiin waxaan idiin sheegaa guud ahaan beelweynta habargidir waxaan u sheegaa sanadkan waa sanadkii beesha habargidir waa inaan ka shaqaynaa hoggaanka dalka inuu noqdo qof habargidir waa inuu noqdaa waa inaan cududeena mideynaa waa inaan fikirkeena iyo taladeena iyo aqoonteena aan mideynaa waa inaan isku duubnimo sameynaa waa inaan tanaasul leenahay waa inaan runtii u istaagnaa badbaadada generationka soo socda waa inaan u istaagnaa badbaadada galmudug
وأنا أستغنى جود أهان بهذا الصومالية سنة كان كما قنع كرنه ملكه سيسو مدحوينها دلك أو ملكه سيسو رئيس الوزراء دلك labadaas midkood ayaan ku qanci karnaa meel ka hooseyso walaalayaal nama qanciso kuma qanci karno meeshaas meel ka hooseyso nooma qalanto maxaa yeelay markaan ka shaqeynay inaan dhisno walaalaheen abgaal waxay noo arkeen dad duqomaa waxay noo arkeen dad aan waxba gelin waxay noo arkeen dad aan damiir lahayn walaalnimadii hiraabne albaabkeedii waan soo xirnay waxay noqotay dan in lagu gaaro waxay noqotay in lagu dulmiyo waxay noqotay in runtii naloo arko dad وحوش أو حبة جرن وحي نقطة إن حتى ليرة أما اللي وهميه أما رنتي لغو تشته إن معركة محوها هاي أم بنقول كريم بحتى إسكندف معركة هذا لو ضكم اللي حلواتك حتى السنة ده شاش على المستقبل كفوق حتى أنا ندل كان هو جامي كريم سياسة إحياء والسعطة ورنتي دستور كدل كي إن معركة محوها هاي لأن كتر تروح أيام اللي دونا يصامر إيد الكذب عن كباب أنه مركز صحنا مع تاس وحان إهان مركز تو badbaadada dalkan waxaan u ahayn laf dhabar taariikhda marka dib u raacdo dalkan badbaadadiisan laf dhabar u ahayn udub dhaxadan u ahayn dimuqraadiyadiisan dhaxdhaxaad u ahayn hogaankiisan dhaxdhaxaad u nahay markasta hormuud u ahayn waxaan u ahayn halganka dalkan waxaan u ahayn hormuud u ahayn waxaan hormuud u nahay dhismaha hay'adaha dowladnimada ee dalkan aan saldhig u nahay waxaan saldhig u nahay horumarka kobaca dhaqaale dalkan ka socdo waxaan saldhig u nahay أنا قاعد كدول لماذا ذلك أنا صليقون هاي وحنصليقون هاي بدبادة ذلك كان وحنصليقون هاي كدفاعية ذلك كان فرق لي ما هش شيء أجنبي يعني أقولها صليق مركب أما هرمود قلنا مركب ما أقبل كرنا ولا ليال أنا جو أساس هجان يرال موضوع وإيه بشيء سومالية إن ما أنت نلقودوليستو إن أنا ما أنت نلا أركوح أنا حبا إهان إن أنا ما أنت حد قلنا صح معهم ذلك الضمير كأن لهاني عجب برورتا الدقمة علوش وين إنه هرمرا وحنلاقي هاي أنت أنا سوه enough is enough أنت أدل كان يدت كان يدتك أدمتشان أترنتي كون دنايستين واتكسو مودين واتكسو ناحدين وكبل على تين هنتي وكتب بعدين ما أنت كدب إذن كي يلي منه إسل حسابتن أدك أيام ميسك كاني وأنا اللي حسابت منا قف كشتو وحلاقي روا أو هبل قدره إنه ميسك كان حساب أدك إنه اللي حسابت مه دتك نجوم التلاعي كراستك للدون إن السؤال جريانو كويشن جريانو معناها يا مقامك إنه جوجان يا واحد وقبتين دتكو ديجان كودا ولا لي حساب أيا دون كل وجوجا حساب وأنا نلاقي معنا يسنجي قلت من حسابته فورمولا يسنجي قلت من هنانك وحش عضنا يسنجي قلت من ميسك عن صارنا حساب أدك هنتي وأن وحلاقة بسنة دتك إسكودية هنتي إني مجعنا السمعة يعني إكرام ده من الأول عن يشرف كان يهوجان كان ذلك مني دت هنتي كتر ترمي كراسة حد الصومالية يا عالم كان كل حلنا سمعة الشرف إكرامه الصومالية كل حلنا هاي مركيانا نقون هجامياشي نقضي ليدنياشي يعني نقول مركز تاسان عن جوابات قدام بس عن سينا بيشان أدي أدهم هالسنتين هذاك عصبتين رشاق ميديا ندوك سبسكرايب صار هذا صارتنا كم هالسنتين جود أهان هذا نريد بيش وحودنا ولا لك جود يوعيقلين كأد أرنتاس وحن الحريرنا بيش عالم كه أو runtii fariimo u direena oo runtii u sheegayna inaan dalkan hoggaankiisa u taaganahay u sheegayna hanaanka wax u socdaan waxaan ka shaqeynaynaa si volunteer oo mutadawacnimo dalkan in uu u baahan yahay badbaado waxaan beesha caalamka reebay u sheegaynaa inaan nahay dhalinyaradii beeshan dalkan aan ku dulmanahay xaqna u leenahay inaan hoggaanka dalkan qabanno cidna dulmi kartana aysan jirin beel caalamna aysan dulmi karin na inkiri karin Soomaalina na inkiri karin ولا لهنا أسوأ على فكرة أبقى إنسان إنكري كريم حقنا للدوسي كريم باشان أتاجنت هاي أي هدولي بال أتاجني بدبادة در كان هرمر كيسة دفاع عيسى ما أنتنا أتاجنا وجان كيسة باش عالم كان وانا خانس لو خلق عشرة أخوان تيدين لين هاي كرتيدين لين هاي عدنا يا أخوان بدل ملهن عدنا يا حوار بدل ملهن عدنا كرتي بدل ملهن عدنا نجد دال يجهد بدل ملهن قوة هجان كان نون غذي وحما ترياشة الليدن الدقمة وانا قانا سيدا أن يعود لهنا أن رنتي أسوع عشانه أن رنتي وضد صحدا أتصنه وأنا تسعنا هذي وضد صحدا قاعدة ويان يمني ماذا باشان ننعك الرعي ويان دت كودني وأنا قانسان سجيات تورنه أن ننعك سجيات لحنه أن رنتي ضد مدرسم يعود مدرسم ولا صبحنا أو سامين تودن رنتي أن أوغن وأنا أودنا محيلي أنا جا أقولنا ولا لا سيد حدا إنه الله مايان يدل ميجون وسعود أنا جا أقولنا إنه هجانا إنه نقدان نانا الظلمي أنا أقولان حدين ديننا دهنا مايا إناف
waan awoodnaa inaan iska qabanno kuwana dulminaa waan awoodnaa kuwa annaga naga dhashay in ku dulminaana ee naloo soo horkacaan aan iska qabanno oon gacmaha ku qabanno labada gacan halgankeenan aan wadno waan awoodnaa guushan aan xaqiijino weligeedna saasaan ahayn waan xaqiijin karnaa guusha waana xaqiijinanaa insha Allah khayr caafimaad bye bye